بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa sharaf weyn ii ah inaad idinkala soo qayb galo xafladan maalinta haweenka Soomaaliyeed ee 8 Maarso. marka hore waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa ugu hambalyeynaya dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka daafidiisa miyi iyo magaalo gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed xuska munaasabada maalinta 8 Maarso. waxaan kaloo salaamayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan kaloo salaamayaa maamo Xaawo oo ah madaxweynaha hore xaaskiisii Allah u naxariistee waxaan salaamayaa gabdhaha labada aqal xildhibaanada wasiiro joog wasiirada dhamaantiin waxaan ku salaamay anoo ka wakiila gabdhaha Soomaaliyeed salaan ka soo gooda kashka iyo laafta. waxaan maran doontaa kaalinta dumarka Soomaaliyeed ka qaataan halganka ummadda Soomaaliyeed uu soo maray si ay aayahooda uga tashtaan. waxaa xusid mudan sida ay haweenka Soomaaliyeed hormuud ugu ahaayeen halgankii gobonimo doonka oo arintaas oo tusaale u ah Xaawo Taako oo aad dhammaantiin taariikhdeeda aad ka dharagsan tihiin. dumarka Soomaaliyeed waxay ahaayeen garabkii iyo gaashaankii dhaqdhaqaaqii wadaniga Soomaaliyeed SYL. waxay marqaati ka tihiin ilaa iyo maanta dumarka Soomaaliyeed u taagan yihiin ilaalinta karaamada ummadda Soomaaliyeed. maanta waxaan leeyahay awal waxa la soo hormarin jiray mudanayaal maanta marwooyaal iyo mudanayaal maanta qoys kasta oo Soomaaliyeed miyi iyo magaalo waxa ay dumarka Soomaaliyeed doorka ugu muhiimsan ka ciyaaraan kobcinta iyo abaabinta caruurta oo ah hogaamiyaashii birita ah. nin walba madaxa hoggaan fiican hayo wadaad ah sheekh caalin ah hooyo dhashay. waxaa sidoo kale dumarka Soomaaliyeed lafdhabar u yihiin dhaqaalaha qoyska Soomaaliyeed. hooyooyinku waad ogtihiin subax shaay dariiq ku gadaa ayaan yaray ku gadaa waxaa laga yaabaa habarta way ka kurbantaa odaga gabar Soomaaliyeed gabar kasta Soomaaliyeed way daraysan tahay taas. waxaa sidoo kale la dhabar u yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida sidoo kale ay labdhabar u yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. caruur ka soo toosta guri nabadeed ayaa bari noqon kara kuwii u istaaga danta dalkooda iyo dadkooda isla markaasna hirgeliya himilooyinka qaranka. sida awgeed waxaa laga rabaa dumarka Soomaaliyeed inay sii labalaabaan dadaalka ay ugu jiraan nabadeynta si loo gaaro xasilooni iyo nabadgelyo waarta dibna loogu dhiso dhammaan hay'adaha adeegga bulshada sida iskuulada cusbitaalada iyo wixii lamid ah. wiil iyo gabar walba waxa gurigiisa ka soo toosa waxa guriga uu ka soo toosay jooga hooyo eedo abaayo habaryar ayeeyo. waxaa la rabaa in ay wax baraan caruurta si aysan dhibaato iyo magac xumo u keenin. waxaa la rabaa inay dalkooda iyo dadkooda aaminsan yihiin waana dalkeena iyo dadkeena anagu aaminaa before ay adduunna aaminin. waxaa la rabaa in dalkooda iyo dadkooda aaminsan yihiin waxay arrimahan ka turjubayaan abaabinta caruurta caafimaad qabta dhibaatooyinkii noo horseeday dagaalkii sokeeye. marwooyin iyo mudanayaal caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waa furaha nolosha wadan walba oo adduunka ah. sidaa darteed aniga ka hooyo ahaan iyo ka marwo ahaan waxaan u taaganahay daryeelka hooyada iyo dhallaanka caruurta Soomaaliyeed iyo waxbarashadooda. waxaan rabaa inaad qaybtiina ka qaadataan horumarinta dhallaanka iyo hooyada. dhinaca dhaqaalaha dalkeenu waa dal barwaaqo ah. waa ogahay
dalkeena waa dal barwaaqo ah waa ogahay inay jiraan dumar badan oo dayar caruur badan leh qaarkood ay ragoodii guriga ka maqan yihiin ama ay geeriyoodaan Allah u naxariistee waxaan ugu baaqayaa ganacsatada gaar ahaan bangiyada inay siiyaan dumarkaas fursado shaqo abuur ah oo ay ku bilaabaan ganacsiyo yar oo ay nolol maalmoodka ka soo saaraan haddii aan hal qoys oo gacan qabanno waxay la mid tahay adigoo Soomaali oo dhan gacan qabta inaan isgacan qabanno ayaan ugu bixi doonaa saboolnimada gaajada iyo jahliga sidaa darteed waxaan si shakhsi ah idinka codsanayaa waadinka gabdhow inaad igu garab istaagtaan igu sidaan si ay miro dhal u noqon lahayd dadaalka aan u daryeelo caafimaadka iyo waxbarashada ugu fidin lahaa hooyooyinka iyo dhallaanka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin hal xabo dardaaran waxaa la dardaarmayaa gabdhaha xildhibaanada hadday joogaan iyo hadday maqayin way maqlaayaan iyo gabdhaha golaha wasiirada ku jira gabdhaha xildhibaanada iyo gabdhaha golaha wasiirada qabiilkooda ma matalaan markaan Ameerika joogay oo la dooranayo baarlamaanka maalintii gabar soo baxdo waxaan leeyahay gabar soo baxday because ana invitation ma baante kuraasta qaar markii qabiilku soo shiray oo yiraahdo wiil ala siina inta loo yimaado no kursiga ma la gabareeyay daad miinas qabiilkaas waa ka baxday gabara tahay gabar marka gabdhaha aqalka hoose aqalka sare iyo golaha wasiirada annaga ana matashaan waadin garab taaganahay noo shaqeeya na aruuriya noo dadaala codkayna ku fadhiin qoondada haweenka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh